الله ونحرسته waxaa bahda kubadda cagta gobolka Shabeellaha Dhexe macsalaameeyay ciyaaryahankii kooxaha Greenpeace Jeva Colaad iyo Farjano Xasan Maxamuud Raago Cabdi oo ku magac dheeraa Ogaaska waxa uu ku geeriyooday magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed. Allah ونحرسته Xasan Keef wuxuu ahaa qof firfircoon haddana jecel isdhexgalka bulshada. qof walba soo xasuusata Allah ونحرسته Xasan Keef waxa maskaxdiisa ku soo dhacayso Ogaaskii jeclaa dhalinyarada, Ogaaskii jeclaa isboortiga, Ogaaskii jeclaa inuu caawiyo dadka saboolka ah. Haddii aan eegno waayihiisa ciyaareed, Allah u naxariistay Xasan Maxamuud Raago Cabdi oo ku magac dheeraa Ogaaska 1997 ayuu finaanadii ugu horeysay u xirtay kooxda kubadda cagta Greenpeace wuxuuna ku qaatay 3 sano wuxuuna ku dhex abuurtay asxaab fara badan. sanadkii 2000 ayuu ka tagay kooxda Greenpeace wuxuuna ku biiray Jeva. سلمي حديقان ayaa 2 sano ku qaatay kooxda kubadda cagta Jeva wuxuuna dib ugu laabtay kooxdiisii hore Greenpeace. sanadkii 2002 ayuu dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta Greenpeace wuxuuna xiddigan u suurta gashay inuu ka tago kooxdiisii Greenpeace. sanadkii 2004 wuxuuna ku biiray Colaad Company. ugu dambeyn wuxuu waayihiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyay kooxda kubadda cagta Farjano sanadkii 2005. ciyaaryahan kasta wuxuu leeyahay xasuusta aan ka dhaxalnay xiddigan waxay tahay gooshii aan la hilmaami karin oo ka dhaliyay Al Hilal sanadkii 1997. xirfadiisa ciyaareed xiddigan wuxuu ku guuleystay 15 koob. 1999 wuxuu matalay Allah u naxariistay Xasan Keef xulka gobolka Shabeellaha Dhexe. safarkiisa ugu dheeraa wuxuu gaaray ilaa iyo Laascaanood. Maxamed Xuseen Waasuganyaanyo oo ah rugcada kubadda cagta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u tacsiyay sidoo kalena ka wareystay taariikhda kooban Allah u naxariistay Xasan Maxamuud Raago Cabdi Xasan Keef. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Xuseen oo ku magac dheerayaya ma sha Allah. Xasan Maxamuud Raago Cabdi Xasan Keef wuxuu ahaa nin aad u firfircoon. wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada dadka maaragtay dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe هو فرعون laga tilmaamo. Xasan Maxamuud Raago Allah u naxariisto wuxuu ka mid ahaa sidoo kale ciyaartoydii gobolka Shabeellaha Dhexe u dhashay. marka Allah u naxariisto Xasan Maxamuud Raago Cabdi wuxuu ahaa nin Ogaas ah, nin maaragtay bulshada ku firfircoon, wuxuu ahaa nin dadka islaaxiya oo jecel wanaagooda, wuxuu kaloo ahaa nin aad firfircoon oo arrimaha bulshada si fiican ugu shaqeeya. si wanaagsan maxaad ku xasuusataa marxuumkaasi geeriyooday? wallahi Xasan waxa ka xasuustaa wuxuu ahaa nin dadka dhiban mar walba inuu u heliyo jecelku. wuxuu ahaa nin islaaxa iyo wanaaga aad u jecel oo dadka xaajin jecel maadaama dadka dhalinyarada badan ugu naaneyseen Ogaaska. wuxuu ahaa nin Ogaas ah oo dhalinyarada ku dhex jiro oo islaaxa ku shaqeeya. wuxuu ahaa nin aad cibaadada ugu fiican. nin wuxuu ahaa ma sha Allah dadka aad u xisaabada bulshada maaragtay muranka iyo fadlan dhexgelin badana ka shaqeeya islaax iyo wanaag buu ahaa. Allah u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo leenahay ehelkii qaraabadii uu ka tagay sabab iimaan Allah ka siiyo. waa maalin mugdo ah bahda kubadda cagta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. jannadii firdaws Allah ka waraabiyo marxuum Xasan Maxamuud Raago Cabdi.